xasan Suleybaan ama Abu Falax wiil caan ka ah baraha internetka gaar ahaan barta YouTube sidee ayuu Abu Falax ama Xasan Suleybaan ku gaaray guul iyo sidoo kale jebinta rikoodho aanan horey loo dhigin daafaha dunida. Haddaba waa kuma Abu Falax. Abu Falax waa wiil dhashay 1998kii. xaqiiqdii wadada guushu waa mid odaxa badan una baahan in la soo koro dayr adag. Abu Falax markii uu dhameeyay dugsigiisa sare waxa uu baahday inuu galo jaamacad laakiin qoyskiisu way u aboodi waayeen. Abu Falax wuxuu u jahaystay dhinaca YouTube inuu wax ku soo diyaariyo ama uu barnaamijyo soo saaro. Haddaba isaga iyo aabihii waxay kala noqotay laba xaalad mid dooro inuu raaco aabihii iyo inuu wato shaqadiisa. Haddaba Abu Falax muxuu aabihii ka aaminsanaa barta YouTube markii loo sharaxayay? Saacado badan ayay ku qaadatay inuu aabihii u sharaxo laakiin uu haddana gorofka ku daro. Abu Falax oo aan haybtiisa ilaa hadda xaqiijin laakiin boosaboorkiisu uu egyahay ama boosaboorka wejigiisu inuu xaqiijinayo inuu Soomaali yahay. Haddaba isagu afkiisa kama qiran wadanka uu ka soo jeedo iyo meesha uu ka yimid. Haatan waa YouTuber haysta ku dhawaad 24 milyan oo subscribe oo wax yar ka dhiman yihiin. Abu Falax wuxuu dhigay rikoodho muhiim ah iyo sidoo kale guulo uu ka xaqiijiyay barta YouTube. Abu Falax maalmihiin soo dhaafnay wuxuu ku jiray live ama khadka tooska ah ee barta YouTube isaga oo ururinayay dhaqaale uu doonayo in loogu deeqo dad masaakiin ah. Isaga oo deeqahan uu soo ururiyay isla markaana bartaasi ku soo bandhigayay in uu live-kaasi ka bixi doonin muddo 12 maalmood ah ayay ku qaadatay in uu buuxiyo rikoodhka ah in uu ururiyay 10 milyan oo lacag ah oo uu ugu talagalay in loogu deeqo dadka masaakiinta ah ee barakacyaasha iyo sidoo kale dadyowga ay masiibooyinku ku habsadeen ee Afrika iyo Bariga Dhexe. Abu Falax waxa uu garab si weyn uga helay saaxiibadii oo kuwa ah aad ugu dhiiraday in ay saaxiibkood markaasi ay guulo la xaqiijiyaan. Saaxiibku waa wax wanaagsan waana sababta iyo guusha ka dambaysa Abu Falax. Muddo 268 saacadood ayay ku qaadatay in la isku geeyo ama la soo ururiyo lacagtaas gaadhaysa 10 milyan in ka badan. Laga soo bilaabo 7 bishii January ee 2022 ilaa 12 maalmood ayuu ururinayay isagoo live ku jira qolna dusha iskaga soo xidhay si uu u gaadho guusha. Abu Falax markii uu guushan xaqiijiyay indhaha gaar ayaa loogu eegay gaar ahaan Carabta. Magaalada Dubai oo xilligaasi ku sugnaa ayaa waxa halkaasi ka jiray in dabaaldeg iyo farxad aan la soo koobi karin oo uu aad ugu faraxsanaa Abu Falax ama Xasan Suleybaan iyo bulshadii kale ee halkaas kula sugnayd iyo sidoo kale saaxiibadii garabka muhiimka u ahaa. Guulaha uu xaqiijiyay rikoodhka uu dhigay dhinaca YouTube. Rikoodhka uu jebiyay oo ah live streamkii ugu dheeraa ama markaasi waqtiga ugu badan ahaa ee dhinaca sadaqa la ururinayay iyo sidoo kale dhinaca markaasi waqti dheeraanta qofkii ugu waqtiga dheeraa ee live stream ku jiray. Inkasta oo maalmahaas isaga iyo saaxiibadii ay isku bedelayeen barta live-ka ay kaga jireen ee YouTube, taas oo ay qolada YouTube ay si toos ah ula socdeen ama si tallaabo ah guusha iyo hiigsiga Xasan Suleybaan. Ugu dambeynna qolada YouTube nin ka socda ayaa yimid oo guddoonsiiyay abaalmarino muhiim u ah Xasan Suleybaan oo dhiirigelinaya isla markaana waxtar weyn u leh Xasan Suleybaan. Maalinkaas uu soo ururiyay 10 milyan oo dollar si loogu deeqo dadka barakacyaasha iyo sidoo kale dadyowga la dhibaatoon abaaraha iyo masiibooyinka kale ee Xasan Suleybaan. Lacagta uu soo ururiyay ma ahantii ugu horeysay balse waxaa jiray kuwo ka horeeyay Xasan Suleybaan oo sidoo kale u ururiyay isla markaana uu ugu deeqay dad barakacyaal iyo masaakiin meelo kala duwan dunida gaar ahaan Afrika iyo Bariga Dhexe. Dalka Mozambique waxa uu ka dhisay masjid halka wadanka Yemen uu ka sameeyay xarun caafimaad oo bilaash ah iyo sidoo kale waxqabadyo aad u badan gaar ahaan Suuriya oo uu gaarsiiyay lacag lagu qiyaasay 1 milyan oo dollar si loogu gargaaro xilliyada qabowga dadka xuduudaha ku sugan ee Suuriya. Dabcan Xasan Suleybaan marka uu ururiyo dhaqaalaha waxa uu sii mariyaa
hay-adda UNHCR iyo sidoo kale hay-adaha ay bahwadaagta yihiin ee samafala ee markaas dhinaca mucaamalada gaadhsiiya dadka masaakiinta ah ee daafaha dunida ku kala sugan. xasan taleebaan rafaad badan kadib oo ugu soo maray guushiisa waxa uu xaqiijiyey isagoo mar walba oo uu lambar ku tallaabsado dhinaca YouTube ee islamarkaana maadaama uu channelkiisu yahay sanadkii aan soo dhaafnay ee 2021 channelkii xaqiijiyey 10 milyan oo subscribe muddo hal sano ah, taa oo iyaduna ah mucjiso kale oo cajiib ah. haddaba abufalax wiilkan da'da yar ayaa noqday wiil dhinaca mucaamalada aad ugu wanaagsan kana dambaysa guushiisa oo uu aad wax u bixiyo, taa oo u sababaysay in uu wax badan oo guul ah xaqiijiyo maadaama uu aad ugu fiican yahay dhinaca samafalaha. marka la isbarbar dhigo diidmadii qayaxnayd ee aabihii, maadaama aabihii uu bartan ka aaminsanaa shaqo shaydaan, islamarkaana mar uu waraysi bixinayay ayuu sheegay in ay xaaladdu ahayd laba mid dooro, in uu shaqadiisa uu sii wato iyo inuu aabihii raaco, balse si hoose ayuu u sii watay bartiisa YouTube oo uu horumarka ka sameeyey xasan taleebaan. haddii aad isweydiinaysid weli cidda uu yahay xasan taleebaan, lama xaqiijin karo waddanka uu ka soo jeedo, sababta uu jinsigiisa u qarinayo iyo waxa ka dambaysa, balse waxaa la ogaan doonaa sida uu isaguba shuruudda ku xidhay marka uu gaadho ama uu ballan qaadayba marka uu gaadho 50 milyan oo subscribe, marka uu kanaalkiisu xaqiijiyo inuu waaqaca ka rogi doono jinsiyadiisa iyo cidda uu yahay iyo dalka uu ka soo jeedo. xasan taleebaan waa wiil ka ugu subscribe-ka badan dhinaca luqadda afka carabiga kanaalada ku hadla ee barta YouTube. xasan taleebaan waxyaabaha kale uu soo maray waxaa ka mid ahaa in uu la kulmi jiray cunsuriyad aad u sarreysa oo uu kala kulmi jiray bulshada uu ku dhex noolaa ee carabta, maadaama isaga sida inta badan muuqata aanan cidi u malaynayn inuu yahay carab ama markaasi wadamada kale Afrika ka soo jeeda. cunsuriyadda ayaa khatar u horseeday inuu qol dusha iskaga soo xidho uuna si toos isku weydiiyo sababta ay dadku u soo weerarayaan xasan taleebaan. haddaba wiilkan ugu dambayn guulaha muhiimka xaqiijiyey iyo sidoo kale kabsashada malaayiin qof ee ku xidhan bartiisa YouTube, xasan taleebaan qisadiisu waxay noqotay mid aad la iskula wadaago. mucaamaladan waxaa la gaarsiin doonaa 110,000 oo qoys in ka badan, iyadoo loo sii marin doono UNHCR. هدي